xildhibaan shaar oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland oo telefishinka sahan kula hadlay halkan oo ah magaalada Hargeysa ayaa waxa uu raaligelin ka bixiyay hadal hore uga soo yeeray kaasi oo uu sheegay in ay dhibsadeen isla markaasina uu saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah bulshada degta deegaanada Soomaaliland waa kan xildhibaanka oo amurahaasi ka hadlaya horta marka ugu horeysan hadalka xumaanba uma oran ujeedana kama lahayn hartina waa walaaladay wadadan wada daaroodna iyo hartiba waa walaalada iyo daaroodba geela iyo xoolaha iyo wax loo jeedo anagoo ka soo jeedaaba ilaa ka awow waan ka soo awoobaa horta markaa haddii la gafay aan gafay oo siyaasiyiintu ay dhinacyar ka marmareen boolojis baan ka bixiyey boolojis ayaan ka bixiyey qol iyo qabiilaba boolojis baan siiyey wax magacaa sheegta ee hartiba ah ee daarooda waxaan siiyey dad badan baa dhibsaday dabcan hadalkaasi intii aad tiri oo aad u falaqeeyay maxaad iyaga leedahay anigu waxaan leeyahay iga raalahaad sidaa uma jeedin ujeeddo kale baan lahaa ujeedkaagu muxuu ahaa ujeeddadu wuxuu ahaa ninka madaxweynaha ee hawiye ayaan xorxoray ayaan ujeeddo ka lahaa laakiin dabcan adigoo ka mid ah odayaashii golaha guurtida Soomaaliland ee oday weyn oo reer Soomaaliland ah in waxa weeyaan hadalkaasi ka soo yeero waa khalad baa bahdo gafiba waa khalad ba soo ma fahmi sidaana uma noolane waan xiisiyo baan ku weyn wax kale oo dhan waa lagu diray waar harti waan xiisi dawarna waan xiisi saabti soo ma fahmi waan xiisi sayibka waa oranaya laakiin hadaa dhibsateen raali ka ahaada qor iyo qabiilaba ninka hawiyana madaxweynaha noqdayna waxaan ka doonayay inuu aan xorxorto aan ilaahdo ilaa markii hore yeelo diiday in hawiyahana aan yara xorxorto baan doonay waa intaas Cabdiqani Xuseen Abakar Cabdiqani Baylood Saham TV Hargeysa dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed